Kooxda kubadda cagta ee gaadiidka ayaa ka baroordiiqaysa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid mid ka mid ah ciyaartoydeeda oo lagu magacaabi jiray Ibraahim Mascuud Cali, oo si naxdin leh ugu quustay xeebta Lido xilli tababar ugu socday. Dhacdadan ayaa waxay dhacday subaxnimadii Khamiista. Faahfaahinta ku saabsan dhacdadan ayaa weli ciriiri ah, balse wakaaladda wararka ee Gaarisa ayaa ka xaqiijiyay saraakiil sare oo dhanka ammaanka ah. Ibraahim, oo 26 jir ah oo caan ku ah xirfadiisa kubadda cagta, ayaa ku qarmay intii lagu jiray casharadii subaxdii. Ilwareed kala duwan ayaa sheegay in ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay baarayaan sida ay u dhacday geerida marxuumka. Ibraahim Mascuud Cali waxa uu qayb muhiim ka ahaa kooxda gaadiidka, isagoo mutaystay in lagu ammaano sida uu u heelan yahay isboortiga. Geeridiisa ayaa ka nixisay dadweynaha, waxay aad u saameysay qulubta asxaabtiisa iyo taageerayaasha kubadda cagta Soomaaliya. Naadiga ayaa soo saaray bayaan ay ku muujinayaan sida ay ugu xun yihiin dhacdadan, waxayna tacsi u direen qoyskiisa iyo qaraabada Ibraahim Mascuud Cali. Xiriirka kubadda cagta ee magaalada Muqdisho ayaa la shaqeynaya maamulada baaritaanada ku sameynaya kiiska si ay u iftiimiyaan duruufaha ku xeeran dhimashada iyo naxdinta leh. Kooxda gaadiidka ayaa ah koox ka dhisan magaalada Muqdisho, waxayna hadda ka ciyaartaa horyaalka Soomaaliya, gaar ahaan horyaalka koowaad ee Soomaaliya.